بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبرنا ويدينتنا what is a delegation in management أما إرجع معمول أنت أعلن قيحين عن إصلاح أرجنو سدح ذن إري أو أساس شقة إرجدا كو responsibility أما وإني جرتا شقة الربا إن لقبته مداس أو أي تهاي إن قف مسؤول لو غديه لبو authority أما أبوتسين sidoo kale waa in qofka shaqada loo dirayo la siiyaa awoodda uu u baahan yahay si uu u fuliyo shaqada laga filayo. 3 waa accountability ama isla xisaabtan midaas oo ah qofka maamulka ah xitaa haddii uu shaqadii qof kale u diray qofka maamulka ah ayaa lagula xisaabtamayaa natiijada kama dambaysta ah ee shaqada la qabanayo. haddaan intaas isla fahnay aan markan aragno qeexida delegation ama erga maamul waxaan ku qeexi karnaa in ay tahay marka shaqo la rabay in uu qabto qofka maamulka haya uu u diro ama uu u wakiisho qabashada shaqadaas qof isaga ka hooseeya balse natiijada shaqadaas waxaa lagula xisaabtamayaa qofka maamulka haya oo shaqada diray. dhanka kale qofka shaqada loo diray waa in la siiyaa kheyraadkii iyo awoodii uu shaqadaas ku qaban lahaa. midaas ayaa waxaa loo yaqaanaa delegation in management ama erga maamul. si aan iskula faahno qeexidan aan aragno tusaalahan aan dhahno maamulaha waaxda iibka ayaa waxa uu u diray qof ka shaqeeya waaxda inuu diyaariyo riboodka bilaha ah ee waaxda. maamulihiina waxa uu siiyey awoodii iyo kheyraadkii u baahnaa qofkii shaqada loo diray wuuna u sheegay nuuca xogtu u baahan yahay in la soo ururiyo iyo welibana qaabka loo diyaarinayo riboodka. sidaas oo ay tahay in ribood sax ah la diyaariyo laguna diyaariyo xilligii la rabay waa mas'uuliyad saaran maamulaha waaxda iibka. waxaa laga yaabaa inaan isweydiino maxay tahay faa'iidada ku jirta in shaqada loo diro ergo haddii mas'uuliyadii ay weli saaran tahay maamulka waaxda. faa'iidooyinka waxaa ka mid ah kow qofka maamulka haya waxaa ka yaraanaysa shaqooyinkii uu qaban lahaa oo hadda waa inuu hagaa qofkii shaqada qabanaya sidoo kalena wuu saxayaa riboodka loo keeno ama wuu turxaan bixinaya haddii loo baahdo halka uu awal shaqada bilow ilaa dhammaad keligii uu qaban lahaa hadda wuxuu haystaa kaaliya. 2 maadaama ay shaqadii ka yaraatay qofka maamulka haya waxa uu helayaa waqti uu ku bixiyo qaababka uu ku horumarin karo waaxda. 3 qofkii shaqada loo diray ee ka tirsanaa shaqaalaha waaxda waxa uu helayaa qaab uu ku horumarin karo khibradiisii oo aqoon cusub ku baran karo iyo inuu mas'uuliyad qaadi karo. gunaanad delegation ama erga maamul waxa ay ka tirsan tahay aaladaha ay maamulka adeegsadaan si ay u horumariyaan waxqabadka shirkadda iyo shaqaalahaba. maamulka waxa ay helayaan waqti ay ku horumariyaan waxqabadka waaxdooda halka shaqaalahana ay helayaan fursad ay ku kasban karaan khibrad iyo inay qaadi karaan mas'uuliyad. hadda ka hor ayaan kasoo hadalnay qeexida management iyo strategic management ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تسندين وينو مركل هدي ربي دمو.